horta aan idin warramo subscribe baad odhanaysaan channelkan horta Xuseen baa la dhaka weynaa la Xuseen dhaka weyne markii saddex fariirada uu diyaar adiga maxaa ka galay subscribe ku dhadii soo gar ila liqa gelin ka daran garya garisirti gelin ka daran gobol ka go'ay gole u duday garab ka tagay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol ka go'ay gole u duday garab ka tagay kulan wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xog wareysi xilligan oo kale habeen walba marka laga reebo jimcaha waxaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee Muqdisho. adduunyadu waa midaan dusheedu mashquulka tahay alla tiirkeeda muday macnay ku salaysan tahay qofkii ka macaashi kara macluumaad bay sidaa makhluuqaad baa ku nool misana waa kala maqan dadka ugu muunan weyn ismana ma ogaan karaan hadday kala maqan yihiin maqsuud ma ahaanayaan hadday kala maarmayaan marweysaygeedii maa wadaad isu meheriyeen waxay magac leeyihiin amay meel gaarayaan intay isku milan yihiin mas'uul waxa looga dhigay aqliga maankooda gala inay wax ku maamulaan mashaakilka caalamka ku maareeyaa la yidhi shuruuc baa loo mulkiyey cadaalad ku meel marshoo xaq miisaamaa la yidhi xuduudna loo mitiri intaasina waa mamnuuc intaasina waa mabaax jannaad ku macaansataan inaad mudataan cadaab middii aad doorataan jidkaas baa loo maraa minhaajkaa loogu qoray mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa habeen Isniina Salaasa ay soo galayso taariikhdana waa 15 Abriil sanadka 2019 qodobada barnaamijkan xog wareysi caawa aad ku dhageysan doontaan haddii Allah uu dulidmo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo xilalkii laga qaaday kuba kalena waa la magacaabay waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale oo aad dhageysan doontaan waxaa ka mid ah waalidiinta gabar kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug wali waxay xasuusanayaan dhibkii gabadhoodii gaaray laakiin waxa ay rajabeel ka qabaan in cadaalad ay helaan waxaan nooltu sameeyay fariisa jirtay sida uu farxad badneed ciyaalka la dhashay wareysanay gabar yar oo hataa ayada laga jaahay aad u qurux badan iyo gabdho kale iyo dad badan aan meesha joogay wallahi anaga naftirkeena waa murugoona markaan u tagna laakiin faahfaahinno dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dad shacab ah oo lagu dhaawacay magaalada warar ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa waxaa kaloo dhageysan doontaan ammaanka magaalada Muqdisho si loo xasiliyo waxa maanta Muqdisho ka dhacay shir looga hadlayo sidii al-shabaab looga saari lahaa gobolada ku teesan Banaadir waxaan idin soo gudbin doonaa natiijo ka soo baxday shirkaas waxaa kaloo dhageysan doontaan muddo ay cabasho qabeen iyo dib dheer kadib waxoogaa waa la dabciyey culayskii magaalada ka saarnaa kaxaynta gaadiidka ragga kaxeeya gaadiidka loo yaqaano mootobajaajka waxaan idin soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay waxaa kaloo dhageysan doontaan Hirshabeelle oo ka soo horjeesatay natiijada shir Muqdisho uga qabsoomay wasaaradaha gargaarka ee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaan nama anfacaan mana qaadan karno inaan iyadoo nala kadiyay la mid tahay mana qaadan karno in annaga nala siiyo hal degmo ayaguna waxay yiraahdeen waxaan ka bedelayna ama aan ka bedeli karnaa ma jiraan qodobadaasi waxay kale nagu soo korray inta barnaamijkan ku guda jirna ayaa saaxiibayaal maqli doontaan xubinta kalamaan iyo sidoo kale waxaad dhageysan doontaan umigii dhacay dib in loo saxo daacadu ma kicin markuu dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee dhamanburkiyo dhamacdooniya iska dayo dadka la mid magacaygu waa Xuseen Cabdulle Maxamed Shariif Sheeke ayaa farsameynaya waa mar kale iyo xog wareysi dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay guluf ku tegey
isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday. kulan wanaagsan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan beledweyne radio wadani hayaan oo gaalkacyo ku taalla ayaa sidoo kale naga maqlaysaan cadaadana waxaad naga dhegeysanaysaan radio cadaado kalay FM oo maraykanka ku taalla ayaa toos nagala socotaan waxaa ku bilaabaya hirshabeelle. maamul goboleedka Soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay natiijada shir muddo dhowr maalmood ah muqdisho uga socday wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wasaaradda kareyntood oo maamul goboleedyada ka tirsan waxaana shirkan looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dabiiciga ah ee dalka ku soo laabta gaar ahaan abaaraha iyo sidoo kale fatahaadaha webiyada iyo sidii xal waara ama qorshe loogu dejin lahaa in gurmad degdega dadku ay helaan. hirshabeelle waa ay cambaarayso weyne ka soo horjeestay natiijada shirkaasi sababtu waxaan weydiiyey cabdimahad cabdulaahi qorgaab oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamulka hirshabeelle. maalmahan waxaa socday shir looga hadlayay waxa la yidhaahdo steering committee amba mashruuca ka jawaabidda baahiyooyinka degdega loogu magacaabo loogu magac daray. mashruucaasi waxaa maalgelintiisa bixinayay African Development Bank waa garta waxay soo marsiisay igad sidoo kale intoodna waxay implementer ka dhigeen oo ay ka dhigeen Save the Children marka waxaa la isugu yeeray maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa gaadgareynaya ama waxaa hogaaminayay dowladda federaalka iyo humanitarianka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowladda federaalka markaan meesha isugu nimidna waxaa nala soo hordhigay waraaqad ay ku qoran tahay in ay maxaa la yidhaahdaa Somaliland ay intaasoo degmo ay leedahay ilaa iyo 8-9 degmo sidoo kaleentood Puntland ay leedahay intaasoo degmo sidoo kaleentood ay leedahay koonfur galbeed ilaa iyo 8 degmo ay leedahay maxaa la yiraahdaa sidoo kaleentood galmudug ay leedahay ilaa iyo 6 degmo mise 5 degmo miya maaqane ay leedahay markan saa u sii fiiriyayna ay leedahay maxaa la yiraahdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle ilaa laga soo bilaabo dagaaladii iyo maxaa la yiraahdaa fatahaadadii iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa oo haddii ayba state ay wax ka dhaceen baahiyooyinkii ugu badnaa ay ka dhaceen waxaan ku arkay hal degmo oo keliya. marka degmo la leeyahay Hirshabeelle ama koonfur galbeed ama Puntland degmooyinka tirada aad sheegtay ma inta goobood oo degmo ah loo aqoonsan yahay miya mise goobo ay wax ka dhici karaan degmooyinka dhibaatooyinka laga filan karo maya waxa waaye waxay leeyihiin ayagu siday ku saleeyeen waxay leeyihiin report la sameeyay oo waxa la sameeyay information la aruuriyay informationka la aruuriyayna waxa lagu saleeyay inay ka baahi badan tahay Jubbaland inay ka baahi badan Hirshabeelle iyo Jubbaland inay Jubbaland baahi badan tahay waa garta inay koonfur galbeed iyo Hirshabeelle koonfur galbeed baahi badan tahay sidoo kale intood Somaliland iyo Hirshabeelle inay Somaliland badan tahay oo ilaa iyo 9 degmo la siiyay marka degmo waxaan ula jeedaa 9 degmo ayaa waxaa looga qaybin doonaa waxa la yiraahdo food oo cunno ah oo kalantood biyo dhaamin iyo sidoo kalantood calafka xoolaha waxa la yiraahdo lagu asteeyay marka Hirshabeelle halka degmo loo soo qaaday ama wax laga qaybin doono waa degmada Cadale waa gartay degmadaas waxa la yiri halkaas degmad leedihiin waxaan iri anigoo halka fadhiyay waxaan ku iri waxaan qaadi kara ma aha waana wax cadaalad darro ah waa gartay cidda soo sameysay iyo cidda soo qaaday labaduba cadaalad darro ka hadleen ama cadaalad darro sameeyeen
marka waxaan adigu yarta informationka ama warbixinta deegaanada laga soo sameeyaa sameeyay warbixinta waxa sameeyay ayagu leeyihiin waxa sameeyay FSNU waa gartay maxay tahay ayada FSNU dabcan waa hay'ad samayso warbixinooyinka ka samayso gobolada sida ayagu sheegeen oo ay noo sheegeen ma Soomaaliba ama hay'ad ajnabi oo ay la shaqeyso maya cidna lama shaqeyso FSNU waa daatooyin soo aruurisa and then way wareejisaayo way dhiibtaa meel hebel waxaas ka jira meel hebel waxaas ka jiraan sida logically ahna canuga yariiska yar ayaa wuxuu dareemi karaa waxa Hirshabeelle baahiyooyinka ka jiro iyo dhibaatooyinka haysto iyo sida ay ugu baahan yihiin in loo wax loogu qabto sidaan wada ognahay 2018 ilaa iyo caalamka isku soo baxay oo wadidana ku soo hogmaday ummadana ku baabaaday haddana waxa la rajaynayaa haddii oo laga baqaayo cabsi badan laga qaba haddii wadidii uu haddana yimaaday sidoo kale intood inay ka dhacdo marka ayaan ka magangalayna waxaan meesha ka cadeeyay in waxani aysan ahaynin wax cadaalada wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee ka soo wada jeedo maxaa la yiraahdaa hal meel ka soo wada jeedo waxaan aad uga xumahay inay hal meel u wada eexdaan oo ay maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed u kala eexdaan inay maxaa la yiraahdaa ay ka wada eexdaan Hirshabeelle waa waxaan qaadan weyna ayayna noqotay wasiir ma u sheegtaan dawladda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda arrintan qorsayso ee gargaarka iyo labadan wasaarada kale hawsha wax ka wada ka hor intaan natiijada soo bixin oo saxaafadeedka wasaaradda gargaarka soo saaran shirka la dhameen baahiyaha jira wixii la qoray in badan ayaan wada hadalnay in badan ayaan wada doodnay 2 maalmood ayaan wada doodaynay oo aan ku dhahaynay waxani nama anfacaan mana qaadan karno inaan yaani iyadoo nala kadiyay la mid tahay mana qaadan karno in annaga nala siiyo hal degmo meel maxaa la yiraahdaa dadkoodii iyo in badan ay naga wada horumarsan yihiin ay dhibaatada maanta Hirshabeelle iyo ay tabanayaan aanay ka jirin 9 degmo iyo 8 degmo la siiyo waxaan qaadan karna maaha ayaguna waxay yiraahdeen waxaan ka bedelayna ama aan ka bedeli karnaa ma jiraan mar haddii ay sidaa yiraahdeen waxaan baaq iyo maxaa la yiraahdaa cabasho u dirnay bangiga oo ka soo baxay haddii ay ku raacaan cadaalad darrada waxa aqwaaqibti ka timaada iyo maxaa la yiraahdaa dhibki ka yimaado ayaga wax laga weydiinaya Hirshabeelle waxba laga weydiinayo marka wasiir degmooyinka warbixinta laga sameeyay la leeyahay waxba ka dhici kara ama gargaar laga bixinaya maxaa lagu doortay waan ognahay degmooyinka warbixinada laga sameeyay ee la yiri gargaarka laga bixin doona maxaa lagu dooranaya degmada maxaa intee laga eegay dabcan waxaa laga eegayaa tabaalaysi ama yani inay waxayba maxaa la yiraahdaa ay tabaalaysan tahay degmadu oo ay ka jiraan dadka la yiraahdo affected people-ka oo ay aad dadkani ay u baahan yihiin ay ka jirto baahi looga baahan yahay inay wax looga qabto wax biyadaamin iguma jirin liiska oo biyadaaminka iyo liiska kalantooda cunadaan hal degma ay iga jirto isla degmadii cadaalad darrada la sameeyay sida ay u baahan tahay waxa kaloon ka yaabanahay degmadii laga sameeyay oo cunadii loo ogolaaday xitaa meelna waxaa waaye food ku qoran oo cunada ku qoran in loo qaybiyo meelna waxaa ku qoran structure ah in biyadaamin loo samaynayo degmooyin waaya marka hal degma la isiiyay halkii degma haddana qaybtii biyadaaminta kuma jirto waaya marka waxyaabaha inta badi aan aad uga yareeqsooday ama aan aad uga xumaado oo dadka soo diyaariyay inaysan cadaalad darrada ay ku fogaatay waxa aan uga xumaaday ayay kamid tahay ummadda Soomaaliyeed dadkan way matalaan dawladda federaalka ummadda Soomaaliyeed iyada maxaa la yiraahdaa wax laga weydiinaya inay arrinkaas ay ka jawaabaan ay wax ka qabtaan ay wax ka bedelis ku sameeyaan ayaga ayaan u bandhignay ma u sheegtay dawladdaada ama madaxda ka sareyso Hirshabeelle ma la wada aad baan ugu sheegay aad baan waxaan ku sheegaa uga warhaayaan wayna ka wada xumaadeen madaxweyne maxamed cabdi waare iyo ilaa iyo maxaa la yiraahdaa intiiba caqliga golaha wasiirada dhammaan waa la wadaagay xogta madaxweyne ku-xigeenka waan la wadaagay dhammaanna way ka wada xumaadeen wayna ka wada dhiibiyeen wax ay aqbali karaanna ma noqonin qof oo aqbasho oo tiraahdo waan aqbali karnaa waa la qaadan karaa ma jirto marka ilaa hadda wax warama kaaga soo laabtay warbixintiina aad soo saarteen kadib dawladda federaalka ah ama iyo hay'adaha gargaarka
wax war ah oo iga soo laabtay ilaa hadda ma jiraan war saxaafadeedkiisa aan usoo saarnay ilaa hadda war nooga soo laabtay ma jiraan ayagu 24 saac gudaheeda war idinku keenayna markii horena dhaheen kadib war way noo keeni waayeen waxaan u fahmnay inay shaqadooda iska wataan Hirshabelle maxay noo sheegaysaa ay ula jeedaan awalba ninkii saan nagu sameeyay haddana inuusan waxba noo fahmaynin oo waxba naga dhiganaynin aan u fahmnay saxaafadeedkaasaan marka sidaa kusoo saarnay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee maamul goboleedka Hirshabelle Cabdimahad Cabdullaahi Qorgaab ayuu kaasi dhageystayaal oo telefoonka igu waramayay keenan Muqdisho ay nagala socotaan goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa warar kale soo dhawaada hasha bar mise bar waxaa iskale geedka beeyada Muxurland waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waxaa iskale Jiclan waxaana wakiil uga ah Qorane waaxda soo hartay fallar mise fallar waxaa iskale Qansaxlan waxaana wakiil uga ah Diiriye fallarka soo haray Jibsi mise Jibsi waxaa iskale Garaslan waxaana wakiilka ah Markerow Jibsiga soo haray Ribic mise Ribic waxaa iskale Mukaylan waxaana wakiil uga ah Calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo qaybtii dawacada miya allow cadaalad ma u qaybinay warde qaybta noocani maxay ahayd ka joog adiga kuma jirtid Said Bursi waa kan Soomaaliya indhahan u yeelay ya suluuga iska dhaf niseexday iyo soo jeeda isku si wax looga qaybiyo horaa loo yiri ninka seexda Siciidi uu dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshay iska dhaafa suluuga aan mudnaado maalkanay si magacnayan waayin waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaatan oo kala arkay gacal kala lumiyo geed ka baxay godin ku taal gadowya isku maran kula wanaagsan barnaamijka xog wareys ayaad maqlaysaan oo idaacadda kulmiye ee Muqdisho ee kaga imaanaya saaxiibayaal markana gaalkacyo eebban naxariistii janna Allah ka waraabiya bishii February ee sanadkan 2019 magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca waqooyiga ee Puntland waxaa lagu kufsay Caaisha Ilyas oo 12 sano jir ahayd ilaa waqtigan oo ay bilooyin ka soo wareegeen Caaisha ma helin cadaaladii ay u baahneed qoyskeeda waxa ay rajo aad u hooseyso ay ka qabaan in xukun cadaalada ay u helaan dadkii gabadha kufsaday deetana dilay warar waxaa jira sheegaya in la sii daayo laba ka mid dadkaas haddana laba ay xiran yihiin qaar ka mid dadka saameynta leh gaar ahaan kuwa u dooda xuquuqda dumarka iyo dadka kaleba ayaa bilaabay inay booqdaan guriga gabadhii halkaasi ku baxday oo raggu ay kufsadeen deetana ay dileen qaarkood waxay talahaan ku soo jeedinayaan in la helo cadaalad gabadhii dhibka geystay dadkii u geystayna xukun la marsiiyo ay difaac u tahay dumar kale oo badan oo Soomaaliyeed Puntland si gaar ah maalmahan ugu badan yahay kufsiga waliba kuwa ugu xun oo dumarka loo geysanayo deetana la dilayo xildhibaan Farxiyo Xasan Cali waxay ka tirsan tahay baarlamaanka maamulka Galmudug waxa ay maanta iyada iyo dad kala booqdeen qoyska Caaisha Ilyas waxayna ka xog wareysteen halka ay marayaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dadka dambiilayaasha ah qaarka eedeysan ee lahaayo bismillaahi raxmaani raxiim horta marka koowaad waa ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Farxiyo Xasan Cali oo loo yaqaan Farxiyo Falfalos waxaan ka tirsanaa xildhibaanada Galmudug maanta waxaan nimaaday abaarihii 5 o'clock aniga iyo walaashay Maryam Maxamed Jimcaale Maryam Jacayl magaalada Gaalkacyo isla markaa waxaan u gudubnay reerkii ka dhalatay Caaisha Ilyas والله وأتقني مركان تجينا أضاء وبناك كسو قلي هو يدي قبلي وحيو دمو جوار وتقني واسسلاني أضاء أو نوشة إنه كحنوسي وإسبيتال مياه خان ميل أو يالو ودقدقسين يعني هو يدا ماشي كيسني كل بوادرين مكرتا وارد وحداليو قبل ودي باتنا ودلوجستو سوماليو دل أي ولا درينتي وأكتر قفك الشبير كذا كسو قاعد دبعتنا وحي وجهه والله هذه سجمر وجسنا لكن هو كذا قف إلهي تقارن كسب السن كل بوحي ترى عدالة سوينا إن شاء الله وأنا الدولة ما من قبل تقول لنا وفدنا أيها كم مكان أيها وحنا سوينا إن شاء الله إنه عدالة صلاة marka idinka qorshaha aad u aadeen maxay ahayd annagu waxaan u aaminay inaan gabadhaas walaashayna mar horena aad rabnay gabadhan walaashay lagu jabtay gabadha walaashayna oo gabadheeda dhimatay inaan murugada la qaybsano waxaana gabdha Soomaaliyeed waxaan nahay dad isku dhiiga dad isla dhashay dad walaale waxay dareentay waa la dareena mar hore soo aad rabnay haddana Ilaahay saamkeen maanta uu soo qaaday gabadhan kale Maryam Jacayl lagu jabtay intaas aan u xiriiray
maanta waa u tagnay waa soo booqanay waa la soo sheekaysanay gurigii ay ku nooleedaan tagnay waxaan nool tusameelay fariisa jirtay siday u farxad badneed ciyaalka la dhashaan waraysanay gabar yar hataa iyada laga jaahaya aad qurux badan iyo gabdho kale iyo dad badanaa meesha joogay wallahi anaga naftirkeena waa murugoona markaan u tagna laakiin waxaan u tagna dad ilaahay isaga xiranoo suga cadaalad inay helaan laakiin ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan leenahay Caaisha cadaaladeeda laga qayb qaato buntlandna waxaan kula tala maamulkeena sharafta leh insha Allah inuu cadaalada marsiin doono Caaisha maanta cadaalada hadday hesho cadaalad la marsiin gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay heli doonaan aan leeyahay cadaalad sababtoo waxaa la yiraahday weyn meesha weerar kan oo maro ka yar waa furdo waxaan leeyahay maanta Caaisha iyo gabadhi kale uurka lahayd oo ayada uur lenta la xooga haddana la dilay dhimatay waxay helaan sugu doonaan gabdhaha Soomaaliyeed insha Allah hadda gabdho badan oo la soo sheekaysan waxay noo sheegeen inay cabsi badan wajahayaan waxay iga warantaa halka uu marayo arintan cadaalad raadinta ah ee gabadhan dhimata Allah u naxariista Caaisha waalidku wax warbixina ma ka hesheen xagee wax socdaan maya waa ka gaabsatay waxaas nagala ma hadlin noo mashkiliye waxay noo sheegtay inay Ilaahay ku kalsoon yihiin gabadhoodii dhimatay la dilay saqiirtaayna xaqeeda inuu dayaci doonin dawladana ay uga fadhiyaan walina ay ayada go'aanka ka sugayaan aadna dad ugu kalsoon Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ahaayeen annaguna kuma sii badbadan waa dareemaysta dad jirkooda go'ay oo gabadhooda quruxda badneed soo baxayso oo ahaaday dhimatay laftirkeena hadalka kuma sii badan salaanaan ugu soconay inaan murugada la qaybsano ku xunay inaan tusno ma sha Allah waana ka soo noqon marka warar waxa jiray oo sheegay in la sii daayay raggii kursiga ku eedeysnaa qaarkood wax warbixina ma ka hesheen maya afarahaasna aan gelin kamana hadlin ma la deeyana ma dhihin ma xiran ma dhin ayadana nooma sheegin annaguna arintaas ma waraysan mana ka hadlin kaliya insha Allah in Caaisha cadaalad baahan tahay bisan ka hadalna ma aanay ma xiran ma la deeyay afaraas ma dhihin Soomaaliya si guud kursiga waa ugu jira gobollo ama meelo qaar ba ku batay wayna yar tahay waliba waa aad meel u hooseysan in cadaalad ay helaan gabdhihii dhibaatadu gaartay waxa ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed kuwooda maanta xilka haya maxaa isleedahay waa lagu badbaadin karaa dhibaatada gabdhuhu ay wajahayaan bismillaah ma santaan waxaan isleeyahay horta dhibaato badbaadinteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka sugeynaa asaana garab nagu sii doon kaliya waxa lagu badbaadi karaa isleeyahay oo gabdhaha Soomaaliyeed ay ku badbaadi karaan meel kasta ay joogaan ficilka ninka markaas geysta waajibaadka diinta muslimku ka qabta bil lagu la qaco loo cadaalad falo aan odayaal dhaqameed ka hadlin aan nin kale ka hadlin oo qabiil loo fiirin gabar walba Soomaaliyeed oo qofsada ee dhibaato loo geysta gabadha kale la mid tahay waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed odayaalka Soomaaliyeed ha u hiilina gardarada maalin maanta laga tabareer yahay oo Ilaahay hortiisa la taagaya ay jawaab leeyahay ka sugu doona wiilasha dhalinyarada iyo kuwa waaweyn falkaas ka qayb qaadana waxaan leeyahay iska daaya gabadha xoogaysan waa walaashiin idin la dhalatay waa oorideedin dhaxday waa hooyada naaska nuugteed waa eedadii waa habarirtii Ilaahay ka xishooda gabdhaha Soomaaliyeed ka xishooda hooyadiina faraxumeynina walaashiina faraxumeynina ooridiina xoognin waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhawaaq dheer waxaan ku leeyahay gabadha markuu shaydaan intuu qaali ka noqdo isku dayday inaad wax ka soo birat walaasha xasuuso hooyadina ku daysa xasuuso maskiinad ku xoog badan tahay inay taa xasuuso wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed ku figa ka dayaan Ilaahay ha u noqdaano waxa kaloo leeyahay odayaal dhaqameedyada dadka odayaal beeleedaan hale maalinta qiyaamo godka kaliya leedin galaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hortagaysiin حق قبلها كوجي فننا قبلها اللي لقى قردنا كوجي فننا إلهي أن كود دعوينا سبحانه وتعالى إنه صوغبت xildhibaan Farxiin Xasan Cali oo baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ka tirsanayay taasiheed oo maanta waxay ka mid ahayd haween iyo dad kale oo booqday qoyska Allah u naxariistay Caaisha Ilyas oo bishii February ee sanadkan inta la kufsaday tan la dilay meedkeeda laga helay xaafad ku taala magaalada Galkacyo si la mid ah Maryan Axmed Jimcaale oo ka mid ahayd dadkii la socday xildhibaanada oo booqday qoyskaasi ayaa u warantay keenan marka waa idin maad celinaya radio kulmiye maamulkiisa madaxdiisa dhamaantiin Galkacyo waxaan u imiday in aan
xanuunka la wadaago familkii ay ka dhimatay caasho Ilyas aadan caashiiray hooyadeedii aabeed iyo familkeedii walaaladeed waa garta marka arrinkaasaan u soo gaaray in aan xanuunka cajiibka ah iyo murugada ayaan la qaybsano u soo tacsiyeyna familkaas ay taabatay geerida xanuunka badan waa markaad la kulantay iyo wixii idin dhex maray nooga sheekee familku waan is aragnay aabbaha mashquul buu ahaa wiil yaraa ka xanuunsaday uu qaaday hooyada iyo waa is aragnay waa dareemi kartaa kolba meel tacsiyo oo xanuun badan oo murugo badan ay taalo ma aha meel oo goob farxadeed ama goob sheeko ama goob wixii rabo la isku dhaafsan karo ama goob kaftan ma aha ilmihii yareeray gabar yar oo Fardooso Ilyas aadan la yiraahdo Caaisha aad u adag marka aragna anaga naftirkeena xogaa emotional baan iska noqonay hooyadeed oo ah walaa hooyo aanan xaaladeeda maanta aan meel ka sheegi karin iska culus waa soo aragnay xaaladeeda iska culus tahay marka aad iyo aadan uga xunnahay wixii familkaas ku dhacay waxaan u rajaynaynaa insha Allah cadaalad marka arrintii iyo halka ay wax marayaan ma idin la wadaageen way la wadaageen in loo sheego nimanka inay xiran yihiin in maaragtay xaaladda rajadooda familka saas uma fiicnayn oo ma dhehaynin waxbaa maaragtay la dilayaa ma dhehaynin marka hooyo aad u afgaaban oo aad u gaabsanayso oo aad u xishoonayso oo aadna maaragtay walwal badan iyo murug u qabto oo aan waxay ahayd maaragtay aan xaaladeeda si loo qiyaasay aysan jirin bay ahayd maryan maxamed jimcaale oo ka mid ahayd dad maanta booqday qoyska Caasho Ilyas oo galkacyo bishii February dhamaadkeedii ku geeriyootay Allah u naxariistay kadib markii kufsi iyo dil bay u geysteen rag oo qaarkood la sheegay iyagoo eedeysanayaal in la hayo qaarkoodna la sii daayay warar kale ayaan idin soo gudbin doonaa goordhow waxaa ka mid ah warar booliiska Soomaaliya qoraal ayay soo saareen waxay ku dalbanayaan in xabsiga lagu sii hayo dad 50 qof ku dhow oo bajaajley ah kuwaas oo ka qayb qaatay dibadbax maalmo ka hor ka dhacay Muqdisho waxaana sheegay in cadaaladda dadkaas la marsiin doono iyadoo ay wali ay maqan yihiin kuwii dilka geystay oo booliiska ka tirsanaa kufsadaha duloobow sharciga karbaash iyo kurgooye idinku xukumay kansar baanad nagu tahay kalxanta nooga yaalo kaf baanu iska kaasin Soomaali dhaqan bay lahaay dhowr sano oo xafiida gabdhaha lagu dhaaran jiraayo la dhowri jire oo geela laga dhiibi jiray dhamankii fardaha alaadan dheera taybaha noogu wacan dhibkaan halkaad ka dhalateen raggohow dhaaf oo ka hara hadhibin hooyada iyo walaashi dhabku jeclayd kitaabkiiyo sunnada iyo kasmada iyo maadigu kufsiga way mamnuuceen hooyooyinkood baan nahay walaalahood baan nahay xaasaskoodii baan nahay annagaa dhalnay habaryar baanu nahay eedaanu nahay gabdhii baa la kufsanayaa ilaahayni soo qabto ilaahayni soo qabto ilaahayni soo qabto dulmiga ilaahay soo qabto qofku wax kufsanaya oo haddaad tiraahdo maxaa tahay wuxuu leeyahay muslim baan ahay Soomaali baan ahay marka waa wax isdiidan dhaqanka diinta islaamkuna kufsi meel kuma ogolaan dhaqanka Soomaalidana hadda waa uu wada dhalno waa naqaanaho meelna kama ogolaan waxaan ugu habsaday cadow noo gaar ah oo subaxii nagu quraacda duhurkii nagu qadeeya habeenkii nagu casheeya saq dhexe nagu soo guda mid umula iyo mid uur leh iyo mid waayeela iyo mid dhalinyaro ah midnana aan cafin sharaf weeye kaamila karaamada haweenkiyo way nala korreeyaan kalgacal iyo qadarin iyo koob dahaba mooyee ma geeyaan kurbiya cil qofka gabadh kufsada asagoo xoog adeegsanaya qofkaa xukunkiisu waa dil looguna noqon mahayo anaadna igu imanaysaan masaladaas
ka dheer guri guri ku duway gacan gacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay godin godin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gigisbedelay dhowr degmo ayaa maanta xilalkii laga qaaday guddoomiyaashoodii kuwa cusubna waa la magacaabay si rasmi ah bayaanka uma u soo saarin maamulka gobolka banaadir laakiin wararka la helay ayaa sheegaya in degmooyinka shibis dharkinley kaaraan iyo sidoo kale wadajir iyo dhowr degmo oo kale oo 6 gaaraya waa markii la isku diray wadarta guude in xilalkii laga qaaday guddoomiyaashaasi qaarkood xilalkii waa loo bedelo degmooyin kale ayaa la geeyay halka qaar kalena xilkii laga qaaday oo guddoomiyaal cusub la magacaabay dhinaca kale magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso ayaa la qaatay wakiilka midowga afrika ee arrimaha soomaaliya ahna madaxa howlgalka midowga afrika ee amisom waxayna ka wada hadleen sidii muqdisho ay amni ku heli lahayd qorshuhu waxa uu ahaa in muqdisho meel ka baxsan howlgalka laga sameeyo si nabadgelyada magaalada ee waxa loo helo si gaara shabeellooyinka ayaa looga wada hadlay sidii gobolka banaadir ammaankiisa la sheegay in halkaasi ku xiran tahay in ciidamadu ay dhaqaaqaan waa kan guddoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay markuu shirkaas oo dhammaaday bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay inay xafiiska nagu soo booqdaan amisom oo ugu horeeyo ku-xigeenka madaxa amisom iyo midowda africa ee soomaaliya sidoo kale commanderka ama force commanderka amisom oo isagana maanta nala jooga iyo dhammaan mas-uuliyiinta ka socoto ciidamada amisom iyo xafiiska siyaasadda ee midowda africa waxaana ka wada hadalnay sidii runtii aan uga wada shaqayn lahayn nabadeynta dalka gaar ahaan caasimadda waxaana ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay xiriirkii wada shaqaynta waxaan warbixin ka siinay sida xaaladda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga ee caasimadda ee aan wadno waxaan kaloo warbixin ka siinay sida aan bulshada ee caasimaddu ay diyaar ugu tahay amnigii nabadeynta iyo sida aan mar walba bulshadana ugu dhowaano uguna adeegno sidoo kale waxaan uga mahad celinay midowda africa ciidamadooda sida geesinimada leh ee walaalahood iyo walaalaheen ay noogu soo gurmadeen ilaa haddana dalka u joogaan soomaaliya si kooxaan argagixisada meel looga soo wada jeesto waxaan aaminsannahay in ay runtii ay guulo fara badan laga soo gaaray arrimaha la dagaalanka argagixisada marka loo fiiriyo dalalka kale ciraaq iyo afghanistan oo runtii caalamku lacago badan ku bixiyo haddana soomaaliya inay mar walba ay guulo fara badan ka soo hooyaan haddana sidii lagu dardargelin lahaa waxaan kala hadalnay si muqdisho amni u noqoto waa in shabeellooyinka laga xoreeyo kooxaha argixisada arrimahaasoo dhan marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay imaatinkooda iyo waxaan ku heshiinay inaan guddiyo labada dhinac samaysano si joogto ah uga shaqayno cabdiraxmaan cumar guddoomiyaha gobolka ayuu kaasi ahaa saaxiibyeel markana booliiska soomaaliya taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaa ka dalbaday xeer ilaalinta iyo maxkamadda gobolka banaadir in 5 maalin oo muddo kordhin ah loo sameeyo si ay xabsiga ugu sii hayaan 40 qof oo ku eedeysan in ay abaabuleen mudaharaad maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdisho 40kaas qof oo ah bajaajlayaal
dadkani abaabulay banaanbaxa oo ay booliisku haystaan sida ay sheegeen waa eedeynta loo jeediyey waxay ka cabanayeen dil dad shacaba loo geystay oo wadayaal bajaaj ahaa iyo dad kalentood oo shacaba booliisku waxay soo qoreen magacyada 40 qof waxayna xeer ilaalintu ka dalbadeen in muddo 5 maalmood loogu daro si ay dacwad ugu soo ogaan dadkan dambiyada ku eedeysan oo banaanbaxa la abaabulay banaanbaxaas oo ay booliisku sheegeen inuu ka dhashay waayeen banaanbaxu dilalka dad shacaba dhac iyo burburin hantiyadeed iyo fowdo dadkaas ayaana lagu eedeeyay arrimahaas oo dhan ee sabab u hayeen laakiin su'aasha taagan waxa weeye xagee ayay ku dambeeyaan dadkii dilka geystay oo ilaa 8 qof magaalada ku dilay oo ciidanka booliiska Soomaaliya ka tirsanaa miyaa la waayay hal qof oo kamid ah waa su'aasha dad badan baraha bulshada internetku ay isku weydiinayaan maadaama la qabtay 40 qof oo la sheegay in banaanbaxu ay soo abaabuleen oo bulsho badan laga soo dhex saaray haddaba warqadan waxay ka soo baxday taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir iyaga ayaana codsigaasi jeediyay wali jawaab lama hayo oo maxkamadda gobolka iyo xeer ilaalinta oo arrintan ku saabsan keenan Muqdisho nagala socotaan saaxiibayaal gacan sugtiyo gaf lagu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gabagabada barnaamijka soo gaarnay Mareykanka duqeyn ay ka fuliyeen gobolka Bari ee Puntland waxa ay ku sheegeen inay ku dileen hogaamiye ku-xigeenkii ururka Daacish ee Soomaaliya waxaana magaciisa ku sheegeen Cabdilxakiin Dhuqub duqeyntaas waxay ka dhacday deegaanada xiriir oo gobolka Bari ee Soomaaliya ka tirsan waxaana Mareykanku ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameedsadeen markana waxa ku soo dhawaataan saaxiibayaal xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee kalamaanay horta waydin salaamay midna waydin su'aalaya baarlamaankii shalay saxaafadda laga caburiyey isaga qudhiisana la caburiyey dhaqaalihiisiina la caburiyey maxaa ka soo baxay war adinka ruuxaan ahay war baarlamaanka xogtiisii waa lagu hayaa xilli wax la qariyana lama joogo amarka dhama wax lagu caburiyeyna facebooka la soo dhigay oo baarlamaanka laftiisa waxay leeyihiin fahad dartiisa wax oo dhan loo caburiyey hadda waxaan dhihi lahay saraakiishan facebook sirtii qaranka siinaysa saxaafadda maxay uga qarsheen waa su'aal kale war fahad laftigiisa baarlamaanka wuxuu ka dhex yidhi saxaafadda haddii la ogolaan lahaa ma waxaanad ka dhex sheegi lahaydeen hadda fahad codkiisiiyoo duubanoo waxba ka maqnayn baan xalay maxaa la qariyo waayahay war waxba uma ogidine fahad xildhibaanadii su'aalaha weydiiyey mid ka mida wuxuu yidhi sharcigaan isla tiigsanaynaa war fahad yaasiin wariyo aajir weliba tv ka shaqeeyo marka araggiisu ma cusbee hadda muxuu iska qarinayaa war saaka waxaan arkay saraakiil badan oo caraysan oo nabad sugidda ka mid ah waxay yidhaahdeen fahad shala wuxuu yidhi sarkaalkaan mushaarkiisii qaadan hortayda ha la keeno annagana mar lacag noogu dambaysay ma naqaan warnimayow xildhibaan jeeso wuxuu yidhi wargeys Mareykanka ka soo baxa waxaan ka akhristay inuu Donald Trump yiri Soomaaliya iyo Muqdishoba waxaan geliyay xaalad degdega jidadkuna aniga ay xiran yihiin marka haddii magaaladu Mareykanka u xiran tahay madaxdeenu maxay beenta noogu sheegayaan oo amni baan ku sugaynaa iyo annaga xirna noo leeyihiin war ma haysaan roobkii guga gobolada Soomaaliya meelo ka mid ah ka curteen meelo badan dadku waxay ka cabanayeen biyo la'aan marka Allah roobna sii dhaho oo Ilaahay khayr ka rajeeyo rabbiyow raxmaanow soomaalida u roono war rabbiyow raxmaanow roobnin si dheh ilaahow roona roobna sii dhehadba waranu waxaan dhagaystanimayo xildhibaan brofesor Dalxa iyo Xuseen Cabdille waraysi dhex maray brofesorku wuxuu yidhi amnigu waa mas'uuliyad wadareed cid gaarana lagu eedi karo wariyihiina wuxuu yidhi shacabku hadday canshuur dhiibeen dawladdana taageereen wax loo dirsadana aysan diidin weliba idinkoo jidadkii ka xirtay ay idiin sii dul qaadanayaan maxaa ku dhiman brofesorkuna wuxuu yidhi warka aad sheegaysa kalamaanku lama qabto war anago magaca kalamaanka hadalow brofesorka ma in sheegay kalamaan ay kulmiye isku mid aha ay niisariibsanay nimayahow abwaan sheekh nuur la yidhaah wuxuu yidhi xildhibaan Dalxa waxaan dhihi lahay
dilyaa kuufsi dadweynohow dalxa kaa saaray dulyaa hoos dilya kuufsi dadweynohow dalxa kaa saaray dulyaa hoos war waa xildhibaan brofesor ibbi ninka bajaajleyda ku eedeeyey inay bambooyinka tuuraan bajaajleyna waxay dhaheen ibbi hadduusan warkaas raaligelin ka bixin mar dambe bajaaj bilaash kuma raaci doono war ma haysiine ra'iisul wasaare khayre iyo waftigu hogaaminaya waa soo laabteen weliba maraykanka indhahay u shiteen khayrana wuxuu jeediyey khudbad 12 daqiiqo socotay oo lala ashqaraaray we need to see the Somalia we need we are Somalians and you people we want you to help us as we want war khayra khudbadiisa tubii uu noo sheegi jiray ma ku sharaxay war tubta dheer oo sheega samahaydi toobii fudud bal leeyahay war khudbadii baankii muunu jeedi war nimayo xildhibaan aamino la hadlaysay madaxda ammaanka waxay tiri hooyada masaakiinta ee cashuurta laga qaado ee wiilkeedii bajaajta ay deynta ugu soo qaaday suuqa lagu dilaayo adinkana ilmihiinni ayaad cashuurta hooyadaas laga qaaday dibadii ku geysateen markaas baad subax walba aaba jaamacaddii ma aaday iskoolkii ma aaday leedihiin marka ilaahay intaad ka baqdiin ilmahan waa kuwiinoo kale sidan u dhaama xildhibaanad aamino waa xubin golaha shacabka ka mida ma waxay tiri carruurtiinniyo dhoofsanoo yurub ku dheelaysa dhallaan kale xaquuqdood muddaad dhayla ku cunteene war sidaan u dhaamo ilmuhu wax isma dhaamaan waxaan dhihi lahaa run ha loo hadlee ruuxa iyo risaqa rabbi bay isu qoray qofka roorayow rajabeel ha noqon war guddoomiyaha gobolka banaadir geeka maybaa la kulmay bi'elaydii oo lama maalmood binaan bahaayeen bi'elaydina maybaaraan kulankii haliinto birirf maaka erna guddoomiga ma era iidheel waan busnaha iindeersida erikiyaan jididan iin hirinaadeen waan anshuurna siin ku qaado fadee haliboodi ereen taasi adaa nin dareer wayti ereen usuunan dareer wayti war beenta iska daa bajaajleydi waa loo fasaxay jidadkee waxayna dhaheen maanta aadaan u faraxsannahay nalama xushmayn jirine maanta aska taxtaa wayna xushmeeyeen bay yidhaahdeen waraa dhiigii oo dhulkan dhamaadiya ka heleen warnimayaanu calo waxaan ku riyooday madaxda dawladda Soomaaliya oo isku raaci weysan inay waraaqada ilhaan Umar ku cambaaraynayaan soo saaraan wixii jira ma jiraan waad oran jideen waxaan jirina way jiraan waad oran jideen ma jidnayo wajidaan way isku qaba jideen war sidaa maahana waxay ahayd iscadeeyaya iyo dibnaha dhiig marsadayaaba walaa qurux jacaylkaan u qaba way isu dhaqayay war sarwal oo dhiyaw galada iko iidagin leeg toladaaba ilbahna ma faydis tibili anan gob ino dhafoorada hiiridoonad ha oo dhawta madaxweyne noqdaya iyo madaxda taageeraba dawladnimo jacaylkaan u qabo way isu xiraya ka tahriibaya iyo si kale wax u tabceeyaaba walaa qoray jacaylkaan u qabo waa u soo gadan iska celiyaya iyo habaar uga adkaadaaba walaa shabaab nacaybkaan u qabo way isku soconna anigu waxaan dhihi lahaa bambooyin tuurya backaasi bulshada waxay u baaba'sheen bambooyin tuurya backaasi iyo ku bulshada waxay u baaba'sheen waryaa bajaajilay backaasi waa heshiiyeen ee darada dhaw umadan isku dirin waryaa booliska qaranka backaasi hadhiin waryaa mukulaali dawla amanto heliyan hata haytay horta cabdiqani muxuu carraa maalin kasta in taram samcadaan ku dhigay shacabku waa tuunsanaye taga balaayada la xijaabe saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka xog waraysi tan intaa barnaamijka la mid ku kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa nabadgelyo wixii dume wixii didayde wixii degay waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone dabambolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka wixii dume wixii didayde wixii degay waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone damambolkiyo damagooniya iska dayo dadka la noqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad maxaan
dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacadu ma kicin mad ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka madugowde taariikhdii dura tii doraad ay maxaan diidno dabka loo shiday dulmigii dhacay dib in loo saxo daacadu ma kicin mad ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka soomaalodada dawlad weyna dumbuq dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka soomaalodada dawlad weyna dumbuq dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadka kala tegay dareen kala galay ee dawada raba aynu doonee damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibadda ha tegey kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka Soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka dadka qaxaye dalkan baaba'ay dal shisheeya dibadda ha tegey kuwa daranyada dugsan waaye dadaal orodkii doonya ha u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka Soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka damaanbulkiyo damacdooniya iska dayo dadka la noqo dadka